Gaanka gantano oo dhan aan ku bilaabo isla markaana ugu horeysiiyo wararka waaweyn ee dhinaca dulanseeda gaanka gantano oo dhan iyo bariga dhexe qalalaasaha dagaal iyo ololka halkaasi soconaya wuxuu eegay marar ka mid sii darsanaya ayadoo laga digayo in dagaalku dhulka isku bedeli karo saacad kastaba ayaa la sheegay in haatan ay u muuqato mar ka dameysan xaaladdu ay sii darsanayso oo sida dalka loo dhigay wararku waxay sheegayaan in dagaalka dhinaca dhulka ee ballaaran isla markaana sii badan doona saacad kasta uu noqon doono mid aad ballaaran qaar ka mid ah hay'adaha dhinaca dhaqdhaqaaqyada NGO-yada gargaarka ee hay'adaha ayaa waxay sheegeen in dagaalka markuu dhulka isku bedelo uu keeni doono khasaare aad u weyn iyadoo ka digeen inay taasi noqon karto halis aad iyo aad u weyn mid ka mid ah ururada madaxda ee loo yaqaan kuwa ka howlgala dhulka Falastiin ayaa waxay ka digeen inay tani khatar keeni doonto gaar ahaan ururka The Action for Humanity madaxda guud ee ururkaasi oo la yiraahdo Uthman Muqbil ayaa sheegay in dawladda Mareykanka iyo dalalka reer galbeedku ay joojiyaan dagaalka ay qabtaan wax badan isla markaana ay ka gabangaabsadaan siinta lacagaha dhaqaalaha iyo sidoo kale waxa la siinayo ciidamada Israa'iil ee dagaalka ku jira wararka ayaa sheegaya hadaba in iyadoo xaaladdu ay halkaasi marayso isla markaana ay marba ka dameysa sii darsanayso una eg tahay in dagaalku uu gacanta soo tagayo ayaa Israa'iil goortii horeysay waxay sheegtay inay bartilmaameedsatay mid ka mid ah saraakiisha ururka Xisbullah ee ka dagaalamaya dhulkaas gaar ahaan taliyaha ciidanka waxay ugu yeedheen cirka u qaabilsan ururka Xisbullah waxay ku tilmaameen in weerarkoodu uu ahaa mid tumaatisan isla markaana ay doonayeen inay kaga farxashaan saraakiisha wixii ka hadhay wasa hadalka ugu dhigeen wararka wacala dhinaca dulanseeda washana qiimaha badan ee dunida iyadoo xaaladda halkaasi mar isla markaana ay sii darsanayso mar ka dameysa ayaa dawladda dalka Iran iyaduna waxay ka digtay in dagaalka bariga dhexe uu qabsan doono gobolka oo dhan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran ayaa ugu yeeray dalalka adduunka in ay hogaadaan hal mid ay ku biyo cabaan taasoo ah in dagaalku uu noqon doono mid bariga dhexe oo dhan wada guba hadhowtana ciduna isxoo ka qaban karayn isagoo sheegay in ay la mid tahay taraq iyo baasiin la isku dulhayo Abbas Amranchi ayaa waxa uu sheegay isagoo ka hadlayay golaha guud ee qaramada midoobay shirkiisa wuxuuna ku tilmaamay in dalalka qaarkood gaar ahaan kuwa reer galbeedku ay bixinayaan wuxuu ugu yeeray taageero aan shuruud lahayn oo ay siinayaan buuri nidaamka saanooniyada ee dhigicabka kuwaas oo ku fashilmay in ay gabi ahaanba xaqiiqsadaan inay arrintan noqon doonto marka ugu dameysa mid gobolka oo dhan ku sii dhigta hadhowtana caalamka dhibaato aad u xooggan ku noqoto waxa uu sheegay in xanaaqa iyo carada aadka u xooggan ee gobolka ka taagani ay noqon doonto mid iyaduna dagaalada aadka u ba'an inay sii balaadhaan dhinaca kalena mid ka mid ah qodbadihii golaha ammaanka qaramada midoobay ee ka jeediyeen diblomaasiyiinta dalalka Iran waxay ku eedeeyeen golaha ammaanka qaramada midoobay inuu fashilmay waxayna sheegeen in aamusnaanta golaha ammaanka qaramada midoobay ay keentay waxay ugu yeedheen in nidaamka Israa'iil ay siiyaan dagaalka oo dhan iyagu ay wax doonaan ay sameeyaan madaxweynaha waddanka Iran ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in dalkiisu uu ka shaqeyn doono sidii uu awoodiisa ugu ballaari lahaa dhinaca koonfurta iyo dhinaca bariga isagoo ku tilmaamay in waddankiisu uu noqon doono mid aad ballaaran madaxweynuhu waxa uu sheegay in waddankiisu uusan sugi doonin gabi ahaanba in cid gaar loo xidhnaado xataa galbeedka kama saarin in waddankiisu uu saameyntiisa ku ballaari doono isagoo dhinaca kale wareysiga uu bixiyay ku tilmaamay inuusan kala jeclayn ayuu yiri wadamada qaarkood laakiinse wadamada iyagu ay dadka iskala jeclaysiiyaan oo ka wado in wadamada qaarkood ay cadaawad waddankiisa u muujiyeen si daraadeedna sutida loo qaba doono tarbeelka wararka wacala dhinaca dulanseeda dunida oo dhan iyadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan dhawaaqa rasaasta iyo guuxa diyaaradaha ayaa la sheegay in Israa'iil ay wali ku bartilmaameedsanayso deegaan dhowr magaalada Tayri ayaa ka mid ah magaalooyinka sida weyn ay Israa'iil ay u duqeynayso Israa'iil ayaa sheegay diyaaradaheeda nooca xataa istaraatiijiyada duqeeya ay qayb ka yihiin sida uu sheegayo wariye ku sugan aagaas oo la yiraahdo Ali Hashim oo u warrama TV-ga Al Jazeera qaybta Ingiriisiga ayaa ku tilmaamay in ay ahayd 20 in ka badan weerar inay dhacayeen ilaa iyo maanta wuxuuna ku sheegay waraysi uu toos u bixinayay in weeraradana ay u muuqdeen inay Israa'iil ay daneynayso mar ka dameysa in dagaalku uu noqdo mid sii socda ama sii ballaadha oo ka dhigan in xaaladda dagaal ee deegaanada ay ku hayaan weerarka aysan hawa yaraatay ka gabangaabsan doonin wariyaha waxa uu intaas ku daray in mar ka dameysa duqeynta weerar iyo weerar celiska iyo waliba sawaariikhda la isdhaafsanaya ay yihiin kuwa aad u ballaaran isla markaana khasaare aad u xooggan gaarsiinaya qaar ka mid ah ay yiraahdeen dhinaca kale ra'iisul waddankaasi Ciraaq Maxamed Shiica Suudani ayaa ku dhawaaqay in uu qaadi doono waddankiisu taageero kasta oo uu siinayo isla markaana uu ballan qaadayo dadka reer Lebanon ayuu sheegay isagoo la kulansanaa dusmaha xilka ra'iisul waddankaasi Najib Mikati ayuu sheegay in dalka Lebanon wixii ay ka dalbadaan ay siinayaan isagoo dhinaca kalena sheegay in Ciraaq ay diyaar u tahay inay taageerto wuxuu dhinacyada kala duwan ee Lebanon ee Ciraaq ka sugaya taageerada taasna ay noqon doonto mid aad u weyn dawladda Ciraaq iyo dadkeeda waxaad ka sugtaan waxa weeye
wixii aad ka suguleydeen wadan islaam oo carabeed oo hadana daacada ayuu isagoo sheegay in wadankiisa ay taageeri doonaan isla markaana ay bartaari doonaan dadaal kasta kulamada uu golaha ammaanka golaha guud qaramada midoobay yeelanaya ayaa isku bedelay mid gabi ahaanba dhinacyadu ay ku raadiyaan taageerayaal aad u lixaad leh ayadoo la sheegay in ra'iisul wasaaraha wadankaasi Lebanon ilaa hadeerto uu ka soo kordhacsan yahay inuu wadanka ku hogaamiyo in la difaaco qasa waxaa la sheegay Israa'iil inay duqeymo ka sii waday qasa ayadoo sidoo kale dagaalka ballaarisay oo ay dagaalo aad u badan iyo weerar iyo celcelis ay Lebanon ku hayso wararka ka imaanaya qasa ayaa sheegaya in saacadii ugu dambeeyay Israa'iil diyaaradaheedu ay duqeyn aad u xoog sameeyeen laakiin waxaa la sheegay in maadaama ay duqeynta ay ka yartahay intii hore tan iyo intii Israa'iil ay bilowday ololaheeda Lebanon wararka qaarkood ayaa sheegay inay xoojisay dhinaca warwareynta waxaa la sheegay Israa'iil inay bari ugu dambeeyay ay u bedeshay dadkii wax u basaasi jiray qalab qaar kamid ah xaafado qaxoonti iyo waliba ayaa la sheegay in lagu arkay qalabka basaasida Israa'iil ee halkaas lagu daadiyay barta Telegram oo channel ah oo ay leeyihiin warbaahinta dhalinyarada reer Falastiin oo ayagu dadka wararka ku siiya gaar ahaanna ay dhalinyarada oo dhan ay soo dhigto wax alaale wixii laga shakiyo kuna kala xog qaataan caalamkana wariyaashooda gaar ahaan kuwa ay u arkaan qadiyada Falastiin ay taageerayaan ay muuqaalo soo diraan ay kula wadaageen dadka muuqaalo muujinaya agab dhinaca teknolojiyada oo devices ah kuwaas oo lagu daadiyay xiriyaha qaxoontiyada qaar kamid ah kuwaas oo la doonayo in lagu ogaado dhaqdhaqaaqa qaar kamid ah ay yihiin qalab aad u horumarsan Israa'iil ayaa bari ugu dambeeyay waxay aad u isticmaalaysay teknolojiyada bedelka dadka kadib markay sheegtay in dadkii hay'adda Musaad wax u soo basaasi jiray oo soo warwareey jiray intoodii badneed la dhibaateeyay ama la beegsaday sidaadreedna waxay isticmaalaysaa qalab teknolojiyada heer sare qalabka teknolojiyada iyo dadka qaar kood wuxuu sheegayaa wajigooda gaar ahaan koo lagu xogtooda sida ragga ay doondoonayso waana qalabka la sheegay inay ku gumaaday inta badan saraakiishii ururka Xisbullah taasoo ay u isticmaashay kooxda dhalinyarada ah ayaa waxa ay ka hortagayeen hadaba dhaqdhaqaaqyada noocaas oo kala dhalinyarada reer Falastiin ayaa muujiyay isku duubni gaar ahaan kuwa qasa waxayna sameeyeen qof walba wuxuu yaqaano inuu ku tabaruco qofkii arka wax laga shakiyo inuu jidhiba talaabo qaado oo uusan sugin taasoo iyaduna kor u qaaday markaas isku xidhnaanta bulsho ee qasa ayaa diiday in jilbaha dhulka loo dhigo isla markaana waxay muujiyeen midnimo aad u weyn waxaa la sheegay hadii sida qasa ay u midaysnaa lahaayeen reer Lebanon waxay noqon lahaayeen ayaa kuwa Israa'iil si dhab u jabiyay sidoo kale waxaa la sheegay in xataa Falastiiniyiinta kale dhinaca kale jira ay iyaguna midaysnaa lahaayeen oo la midaysnaa lahaayeen walaalahooda qasa la daalacay dagaalka iyo gumaadka inay wax weyn tari lahaayeen laakiin se meesha ugu badan ee laga burburiyay lagana galay Israa'iil ay ka gashay dadka Carabeed waxa ugu weyn dhinaca midnimada oo ay tumaatiday isla markaana nin walba ay geed cidla inta ku xidhay ay ka heshay waa tribalka wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo wajana qiimaha leh wararka ugu dambeeyay dunida wacaalo kala duwan ee dhinaca marka ay noqoto wararka dhinaca waaweyn ka imaanaya caalamka waxa kamid ah xaaladda marbarka dambaysa si xumaanaysa ee wadankaasi Suudaan wadanka Suudaan waxaa la sheegay in xaaladdu ay darsatay kadib markii dagaal aad u ba'an ay ciidamada dalkaasi ay qaadeen kuwaas oo sameeyay weerar aad xoogan weerarka ayaa ahaa mid isku xiran oo la sheegay in ciidamada wadanka Suudaan ay ku doonayeen in ay ku beeqaan awoodda kooxda loo yaqaan RSF waxaa jiray ciidamadii janjawiid si jinka u dagaalami jiray wadankaasi Suudaan sida ay sheegaysa wariyaha ka soo waramaya magaalada Khartoum Hiba Morgan ee TV Al Jazeera waxaa la sheegay in goor sii horeysay la jaray dhammaan isgaarsiinta magaalada Darmaan oo iyadu la ah ayaa la yiri daris magaalada caasimadda ay Khartoum taasina ay ka dhigantay ayaa la yiri ciidanku ay qaadeen weerar aad u culus weerarka ciidanka ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u ballaaran ciidanka loo yaqaan the Rapid Support Force oo si militariga u tababaran wax ciidamo uu sameeyay markii uu horeysay ninkii loo yaqaanay Mr. Umar Hassan al-Bashir kaasoo u isticmaalay gobolka Darfur waxaan loo yaqaanay Janjawiid jabhadda Carabta u badan ayay haayeen markii dambe waxay isku bedeleen oo ay ku dhaceen gacmaha ururka iyo dalka loo yaqaan isku taga Imaaraadka Carabta si aad u xunbayna kuwaas u isticmaaleen dabadeedna waxa ay dhaliyeen khasaare aad weyn oo aad u ballaaran tiyo kor u sii qaadantay isla markaana dhibaato aad u xooggan ay keentay magaalada Darmaan ayaa la sheegay qayb ahaan laga saaray hadaba ciidanka sida ay sheegaysa Hiba Morgan oo ka soo waramaysa aagga waxay ku tilmaantay in ciidamada lagu khasbay ay tiri uu hogaaminayo Hamdan Ahmed sidoo kale Mohamed loo yaqaan qayb kamid ah laga eriyo jabi al-awliya aag loo yaqaano qaab istiraatiiji oo buunta aad u weyn ay ku taalo ayaa la sheegay in ciidamada wadankaasi ay duqeyn aad u baan ku sameeyeen daraasiin kamid ah baabuurta ayaa la arkayay oo la eriyanayo ayaa la yiri kooxda ciidankan weerarkan kadib ah ciidanka ay qaadeen ayaa ka dambeeyay dagaal qarxay Abriil 15keedii sanadkii hore tan iyo intaasna dagaalku uu soconay intaasna waxaa jiray wadamo doonayay inay sheegaan inay u dhaqdhaqaaqaan wadamada dariska uu kamid yahay wadanka Masar ayaa sheegay inay ku fashilmeen inay wax u qabtaan ciidamadan oo kala qabtaan sidoo kale wadanka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa isku horgeeyay wararku waxay sheegay magaalada caasimadda Khartoum dagaal aad u baan oo faraha laga gubtay ka soconayo dagaalka ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid aad u ballaaran aragtiisana leh ciidamada wadankaas ayaa isku dayay inay taageero ayagoo ka heliyay dhinaca cirka ama air support inay burburiyaan qaybo badan oo kamid ah Suudaan
waxay ka mid tahay wadamada tusaalaha nool oo ah dhulka la burburiyay sidoo kalena dalalka shisheeye ay dhulka la simeen taasoo ka dhigan mar ka dambaysa halista aadka u weyn ee ay leedahay faragelin shisheeye iyo nasiib xumo meesha ay ku dameyn karto khaladaadka laga galo markay noqoto dhinaca amni oo tarbeelka wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawashana qiimaha leh gaan dunida oo dhan si kasta iyo meel kasta ga maqlasaana aan dhinaca kala fiiriyo dawladda dalka Shiinaha ayaa gabi ahaanba waxay ku tilmaantay in ay ahayd sharci xaq iyo sidoo kale hood tusaaleyn gantaalkeedii ballistic missiles ahaa ee nooca qaaradaas ka kala goosha ee ay tijaabisay shalay waxay sheegtay inay taasi ahayd khalad fahmeen qaar kamid ah hogaamiyaasha doonayay in ay warkaasi si xun u dhigaan ayadoo ay xasarad aad u weyn ka dhex kicisay wadamada gobolka gaar ahaan dalka Japan ayaa waxa ay sheegtay wakaalada wararka ee dalkaasi oo u hadlay afayeen ciidamada qalabka sida wasaaradda gaashaandhigga gaashaanla sare Shan Xionggang ayaa sheegay in dawladda dalka Shiinaha ay taqaano xaqeeda si adraadeedna uu ahaa wuxuu ugu yeeray mid sharciyad haysta sidoo kalena wax ku ool ah oo ayuu yiri mid ay ku tumaatiyeen isla markaana ay ugu talagaleen inuu hadhowto uu noqdo inay tijaabiyaan gantaalka waaxda ciidamada cirka ee u qaabilsan gantaalaha ee Rocket Force ay tijaabiyeen waa ICBM sida daraadeedna waxa lagu tijaabiyay badda Pacifica iyadoo oo la raacay ayuu yiri ahaanba dhammaan hababka tijaabinta wuxuu ku tilmaamay inay ahayd ujeedo lagu talagalay in la xaqiijiyo lana tijaabiyo awoodda ciidanka qalabka sida wadanku ay u yeelanayaan ku yiryirinta cadawga ee gantaalo hadii loo baahdo gabi ahaanba waxaan raacnay sharciga caalamiga ah ee loo yaqaan international law iyo international practices ama wuxuu yiri xaq ahaanshaha in dadku ay sameeyaan ayuu yiri hawlgal ama ay tijaabo wuxuu ku tilmaamay in cid kasta oo arinta ka xumaatay tahay khalad dalka Japan ayaa waxa ay sheegeen in arintu ay tahay arin aad u dhinaca kalena dalalka Australia iyo New Zealand ayaa iyaguna ku tilmaamay in ay gantaalkan tijaabadiisu cabsi gelin wadamada New Zealand iyo wadanka Australia oo sheegay inay badda Pacific wax ka degan yihiin ayaa ku tilmaamay in cidina waxba la soo ogeysiin khatar aad u weyn la galiyay Tokyo waxa ay sheegtay inay tani tahay ahaanba inay ahayd in taariikhda dhinaca dagaalo wax laga barto taasoo hadallada kulkul ay hayeen macnaheedu ay tahay in Japan ay margabi ahaanba intay gashay dalka Shiinaha ay baabi'isay isla markaana dhulka la sintay mar kalena hadeertay u sheegayso in malaha dagaalkii hore uu ku yaraa dagaalkii koobaad ee dunida iyo kii labaad ee dunidaba Japan waxa ay Shiinaha ka dhigtay maanta caana leh hase yeeshee Japan markii dambe iyagana waxa baabiyay dalka Mareykanka oo hub nugu yara la dhacay dagaalkii labaad ee dunida tan iyo intaasna Japan waxa iyadu isku bedeshay wadan maxmiyad oo ah dalalka reer galbeedka oo aan awood badan oo isku difaacaan aan sinaba u lahayn wali jumlaad waa mid kamid ah hogaamiyaasha markaasi rugcadaaga siyaasadeed aad kana u yaqaan dalalka reer galbeedka wuxuu u dhashay wadanka Lebanon waxa uu aaminsan yahay dalalka reer galbeedku ay sameeyaan munaafaqadii ugu weyneed dhinaca markay noqoto aragtiyada iyo wararka beenta ay shubayaan waxa uu u sheegay isagoo la hadlayay wargeyska Carabiga qaybta Ingiriisiga wariyaha leedahay Halli Gamble ayuu u sheegay in ay ogaato hal shay oo ay barato wuxuu ku tilmaamay inay taasi tahay wadamada Ingiriiska iyo wadanka Mareykanka oo uu sheegay inay munaafaqadeynayaan marka ay noqoto qaabka ay dunida ay ula tacaamulayaan marka ogaato ayuu yiri dalalkaasi waxay sameeyaan qaab darooyin aad iyo aad u weyn wuxuu ku tilmaamay in ciidamada dalka Ingiriiska xataa yimid ayuu yiri Qobrus ee 700 ee isku yeeray in ay doonayaan in ay soo daabulaan dadkooda waa been ayuu yiri waxay doonayaan in niyad ahaan u taageeraan ciidanka Israa'iil waxa uu sheegay dhinaca kale in ay dan ugu jirto dadka reer Lebanon dagaalada noocan oo kale wuxuu tusaale ahaan ururka Xisbullah oo kale ayaga tan ayaa dan ugu jirta markastoo ay dagaal la galaan Israa'iil waxa kor u kaca ayuu shacbiyadooda iyo rabitaanka dadku ay u qabaan haddii doorasho la qabto waxay imaanaysaa in ayaga la doorto loona arko alternative oo ka wada macnaha in loo arko jid kale oo wax lagu badbaadi karo oo dadkana badbaadi kara wuxuuna ku tilmaamay jumlaad in ay sii socon doonto weerarada laakiinse waxa uu sheegay in ay tani ka dhalan doonto kaliya hal shay taasoo ah inay kooxuhu sii awadeystaan Israa'iil ayuu sheegay in taariikh aad u xun leedahay dhinaca kale Netanyahu ra'iisul wasaaraha kan ee dhiigga ku falaxashay ayaa doortay jidka colaadda xabadda iyo rasaasta wuxuuna gabi ahaanba ganafka iyo gaashaankaba u daruuray dalalka reer galbeedka proposalkii ay soo wadeen hindisaha dhinaca nabadda waxay ugu yeedheen dalalka reer galbeedka oo ciduna aysan ka hoos qaadin dhinaca Israa'iil markay noqoto wuxuu ahaa in 21 maalmood la saxiixo xabad joojin hase yeeshee sida iska cad dalalka reer galbeedka hubka iyo saanada iyo marka ay noqoto dhaqaalaha inay siiyaan Israa'iil waa u fudud laakiin markay noqoto in qorshayaasha xitaa ay dadkooda la wadaagaan ay shaaciyaan in uu fuliyo Netanyahu way adagtay taasina waa bahdil aad u xoogan oo Netanyahu uu huwiyo waxaana u egtay dhulka ku jiiday markii ugu dambeysay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo kan Francisca Macron oo labadooda hubkooda lagu dagaalamayo waxaana la sheegay in proposal ama hindise dhinaca nabad xabad joojinta 21 maalmood gabi ahaanba qashanka uu ku daray Netanyahu wuxuu ku tooqay in taasi ay ahayd wax gabi ahaanba ciyaar wuxuu yiri anagu ciyaar hadda kuma jirnay dagaal baan ku jirnay sidoo waxa uu diiday in uu qaadanayo wax ka yar wuxuu ugu yeeray xabadda iyo rasaasta taasoo uu sheegay inay noqon karto waxa kaliya natiijada dagaalka wax ka qaban kara ama xaaladda ay ku xalli karayaan
ogoobi tani waxay u egtay mar ka dambeysay in nidaamka saamiyada Israa'iil ay diidan yihiin wax haba yaraatee nabad laga hadlo ama nabad soo hadal qaado ama lagu markaas fikiro ama xataa dadka qaarkood ay muujiyaan inay markaasi xushmad yar u hayo taasoo ka dhigan ayaa leeyahay sida nidaamka saanuniyadu ay u noqon karto mar walba marka dambaysa xasarad aad iyo aad u weyn inay dunida ay geliyeen waagaan ka gandurooda dawashana qiimaha leh taasna wuxuu ahaa wararka dhinaca dulanseeda ee ugu dambeeyay ka imaanaya dhinaca bajoojinta la quudareynayay ayadoo la sheegay in ay jireen dad aad u badan oo markii horeysay golaha wasiirada ka tirsan Israa'iil oo iyagu waxbada doonayay in la joojiyo dalka Pakistan oo asaguna tusaale u ah wadamada maxamiyada u noqday siyaasiyiinta xunxunna ay gacanta ku dhigeen ayaa mar kale oo soo gaadhay $7 bilyan oo loo yaqaano deyn yaqaan ayadoo qorshihii ugu ballaarnaa ee wadanka laga saarayay deymaha iyo ku tiirsanaanta dalalka reer galbeedka iyo hay'adooda International Monetary Fund laga kala tuuray ra'iisul wasaarihii aadka loo jeclaa ee loo yaqaanay Imran Khan kuna darsamay liiska madax caalam islaami mar la arag kooda noqday oo soo maray oo haddana laga taqalusay dhinaca siyaasadda markay noqotanaya saaxada laga saaray hadeerto dalka Pakistan wuxuu soo dhaweeyay waxay ugu yeedheen qorshahan hase yeeshee dadka qaarkood ayaa ku tilmaamay in ay tani uun tahay in dhinaca qaanta dalka lagu sii badiyo iyo xaaladda wadankaasi ee siyaasadeed inay sii noqnoqonaato mid un cudhaara dalka Pakistan ayaa la sheegay in uu qaadanayay lacag aad iyo aad u badan oo deyn balse dadka qaarkood ayaa ku tilmaamay in deyntan ay wadanka dhibtay ra'iisul wadankaasi Shahbaz Sharif oo hadeerto ka qayb galaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay magaalada New York ayaa la sheegay in uu go'aankan ku adkaystay in la qaato sida uu sheegay mid ka mid ah dadka dhaqaalayahanka Usayd Yunis waxa uu ku tilmaamay in ay arintani ay tahay gabi ahaanba mid u baahan shaqo aad u badan in laga takhaluso wuxuu yiri markay noqoto xilliga dhow waxay u egtahay inay abuuri doonto waxooga ayuu nafisa dawladda laakiin xilliga dhexe marka la bilaabo ayay xooga waxa la arki doonaa waxooga horumar laakiin si ugu dambeyntii dawladdu waxay u baahan tahay inay la timaado ayuu yiri mid gabi ahaanba structure ahaan arrimahan dib loogu habeenayo isla markaana loogu keeno ayuu dhaqaale Islamabad sidan kuma sii dhaqmi karto ayuu lisan looba hogaamiyo oo dal sidan kuma noolaado ayuu u sheegay dawladdiisa dadka inta badan dawladaha toosiye ayaa waxay u hadlaan si la yaab leh marka ay rabaan inay wadankooda markaasi ugu hoga tusaaleeyaan in sida dawladnimada loo rangareeyo dawladnimada si loo maamulo ama loo wado waxa loo baahan yahay qofka madaxda ah in loo sheego isla markaana inay saasi khalad tahay Sajid Amin Chafet oo isaguna kamid ah waaxda Sustainable Development Policy Institute SADPI ee magaalada Islamabad ayaa sheegay in gabi ahaanba ay tani tahay mid adkeed doonta ama mid marka dambeysay wuxuu yiri noqon doonta iyaduna mid xasiloonida abuuri doonta waxoogaa nafis ayuu yiri oo dhinaca markay noqoto soo kabashada bangiyada waa soo hadalka warigay dalka Pakistan ayaa waxaa ka taagan kala qaybsanaan siyaasadeed tii ugu weyneed aadna markaasi marka dambaysa uu si badan gaar ahaan shacabka iyo dawladda ayaa iyagu kala qaybsamay dawladana waxay u arkaan inay tahay dawlad maxmiyada oo dalalka reer galbeedku ay ku install gareeyeen dalkooda ama dul saareen ayagoo aaminsan in dawladii shacabku rabay la burburiyay oo awoodda laga qaaday tarbeelka wararka wala dhacday dawashana gaanka gandurooda dawashana qiimaha weeye waa warar iyo xogaha ugu dambeeyay dhinaca dulansiyaadka caalamka idile dawladda dalka Lebanon ayaa ka mahad celisay gargaarkii u horeeyay ee diyaarado Dapulayaan oo ay sidoo dawladda dalkaasi Turkiga oo soo gaadhay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Abdullah Abu Habib ayaa u mahad celiyay wadanka si loo yaqaan Turkiga oo markii ugu horeysay gaarsiiyay halkaasi agab iyo raashin iyo waliba dawooyin isugu jira ayadoo diyaarad military ay u direen dawladda Turkiga ayaa geysay diyaarad aad u weyn oo military taasoo ay buuxdhaafisay agabyada ay u baahan yihiin dadka gaar ahaan kuwa dhaawaca antibiyootigyada dhigjoojinta iyo waliba dawooyinka degdeg ee qofka markiiba gargaarka ugu sameeya in uu dhiigiisu istaago dhinaca kalena dawladda Mareykanka ayaa ganafka iyo gashaanka u darurtay warar sheegaya in xogaha dhinaca laynta saraakiisha Hezbollah ee Israa'iil ay ka taqalustay badankooda ay bixiyeen iyadoo ay soo baxayeen maalmihii ugu dambeeyay inaysan Israa'iil lahayn capacity ama awood ay arrimahaas ku samayso ayaa la sheegay in aqalka Pentagon-ka waaxda military intelligence ay ka caawisay in la helo saraakiishaasi meelaha ay joogaan dhamaantood qaarkoodna la laayay ama badankoodii la xasuuqay hase yeeshee ku-xigeenka afayeenka waaxda Pentagon ee dalkaasi Mareykanka Sabrina Singh ayaa beenisay in Mareykanku uu qayb ka yahay ololaha Lebanon Lebanon ee dadka lagu leynayo ama saraakiil lagu leynayo ma jirto wax taageera ma jirto haba yaraatay markay timaado arrimaha Lebanon ma jirto cid annaga ka socoto oo aanu ku lug yeelanay mana jirto sidoo kale xog aanu siinay oo tilmaam ka bixinaysa dadka qaarkood ama mid markaas military iyo mid sirdoon iyo mid kala toon waxay sheegtay in ay kaliya ayagu ay doonayeen in dagaalku istaago
isla markaana ay weeraradu ay yaraadaan dhinaca kalena taliyaha ciidanka qalabka sida Israa'iil General Hersi Halafi ayaa waxa uu sheegay inaysan jooji doonin dagaalka diyaaradaha duqeynta iyo sidoo kale weerar iyo weerar celiska wuxuuna sheegay inay diyaarinayaan bedelka dhaqdhaqaaq military oo ay ka sameynayaan aagag dhinaca waqooyi ama jiid waqooyi wuxuu hadalka u dhigay arrimahan waxay ku soo beegmayaan iyadoo ay u eg tahay xaaladu mid marba marka dambaysa faraha ka sii hadis horta sheeko la yaab leh ayaa ka taagan dalka Japan 88 konton sanadood u xidhnaa dil uusan gelin isla markaana ku saabsanaa in uu ninkii uu u shaqeynayay shaqaalaha uu ahaa iyo caruurtiisii iyo xaaskiisii uu isku meel ku laayay ayaa lagu waayay Iwao Hakamadara dalka Japan ayuu ka soo jeeday 88 jir sanadkii 1968 ayaa lagu eedeeyay in uu dilay xaaska iyo ninkii iyo waliba caruurtii reerkii uu shaqeynayay taasna waxay ku tilmaameen dambi baarayaashu inuu yahay kiiskii ugu ballaadhnaa ee taariikhda dalka Japan ee dil ah ee dhinaca cadaalad darro ah dhaca ninkan ayaa la sheegay in uu ku dhuftay markii lagu xukumay dil toogasho ah masqaxiyan isagoo la sheegay in uu waalida ka qaaday kadib markii dusha laga saaray dambi la aaminsan yahay inuu soo gelin si kastaba noqotay 46 sanadood oo xidhnaa kadib haatan waxay u muuqataa in ninkanayto la iska sii daayay kii ugu weynaa ee kiisaska ayaa lagu tilmaamay ee wadankaasi ka jira oo ugu caansanaa taariikhda inta badanna waxaa la sheegay in ninkan lagu maxkamadeeyay kadib markii jirkiisa lagu arkay ama laga helay dharkiisa dhiigga magaalada dhinaca galbeed ku taala dilkii ka dhacay sanadkaasi ee loo yaqaanay markaasi magaalada Shizuoka ee dhinaca galbeed ee wadanka ayaa lagu arkay 66dii markii baaritaanka lagu hayay dabadeedna 68dii ayaa la xukumay oo xabsiga loo xukumay si kastaba noqotaba dalalka ayaa in badan waxay sheegaan inay dhacdo dhibaatooyin aad u xooggan waxay ku tilmaameen waagaasi in ninku marka uu dilka geystay kadib uu gurigii reerka uu ku dhex dilay uu dab qabadsiiyay dabeedna uu ka xaday 200,000 oo lacagta yeenka oo cash ahayd Hakama ayaa waxa uu warkaasi sheegay inuusan haba yaraatay wax shaqo ku lahayn isla markaana uu asagu yahay dulmane la dulmiyay wuxuuna in badan ku celi jiray inuusan dabigaasi gelin hase yeeshee waxa ay u muuqatay inaan ciidana ka dhageysan dabeedna markii xukunka lagu dhawaaqay ay u muuqatay inuu ku dhuftay masqaxiyan taasoo darteed dawladda lagu eedeynayo in ninkaasi u geysatay dulmi aad weyn inta badan way dhacaan arrimahaas mararka qaar kood khalaad ka yimaada dhinaca garsoorka oo keena khataro waaweyn oo qofka saameyn aad u goyn ku yeesha duqeynaha Dubai ayaa ka socota magaalada ilaa iyo xalay toole magaalada Lebanon xarunta waa Beirut Israa'iil ayaa duqeyntaasi ugu yeedhay inuu yahay kii ugu dambeeyay ee fariimo waaweyn oo ay dirayso oo ay ku sheegtay inuu mar ka dambaysa uu si xaqiijinayo wax ugu yeedhay kor u qaadista campaign-ka ololaha dhinaca weerarka hogaamiyaha nidaamka Israa'iil Netanyahu ayaa goorsi horeysay waxa uu sheegay in wajiga labaad ee dagaalku uu yahay mid aad iyo aad u ballaaran isla markaana wax bajoojinaysan jiri doonin tani inta waxa uu ku yeedhay ka taqalusayo xubno wasoo hadalka warigay duqeyntan tug iyo jacda ay ugu ballaaranayaan ka soconaysa Lebanon ayaa u eg mid sii socotay isla markaana sii ballaaratay iyadoo dhinaca kalena ay soo badanayaan wadamada dunida sida weyn arrintan uga falceliyay madaxweynayaasha caalamka gaar ahaan madaxweynayaasha Latin America ayaa u muuqday inay hogaaminayaan kooska ama qadiyada Falastiin iyo dhulka markaasi Carbeed ee kale la weerarayay Lebanon ka mid ka tahay madaxweynaha wadanka Brazil Lula da Silva madaxweynaha wadanka la yiraahdo Bolivia Salvador wadanka Colombia iyo wadanka Cuba Chile ayaa madaxweynayaashoodu carcarta khudbadda halkaas ay ka jeediyeen waxay noqotay mid baradheeraatay kuwa caalami islaami wakiilka u ah taasoo dadka qaarkood ay ku tilmaameen wax la soo dhaweynayo laba kamid ah wararka dadka qaadariga caalam islaami gabadha loo yaqaano Iman Abu Suuda oo iyadoo kamid ah dadka aadkaas weyn u falanqeeya wararka wargeyska loo yaqaan Middle East Monitor ayaa ku tilmaantay in hogaamiyaashan reer Latin America ay u kaceen in ay la dhameeyo xasuuqa qasa isla markaa la joojiyo ayagoo u isticmaalay madal ahaan goobtii adduunku isugu yimid taasoo wax weyn ka tari doonta qadiyada Falastiin iyo qadiyada wadamada Carbeed bedelka wadamada Carbeed ayaa la sheegay badankooda madaxdoodu inay u gooyeen shirka si ay waji gabax iyo falxumada oo la dhuuntaan intoodii joogtana waxa lagu tilmaamay in hadalkoodu uusan nuxur badan lahayn xilli ay qaadi karayeen talaawan ay kamid tahay go'doominta dhinaca dhaqaale ee nidaamka saanuriyada hogaamiyaha wadanka Iran ugu dambeeya ereyga u dambeeya u dhahayo Ayatollah Ali Khamenei ayaa dhowr jeer waxa uu ugu celceliyay kanaad codsaday wadamada Carabta in ay hal shay kaliya qabtaan marka u horeysa bal marka u horeysa in dhaqaale ahaan ay u go'doomiyaan Israa'iil si ay markaasi u xanuujiyaan hase yeeshee taasi waxay u muuqataa haba yaraatee in aysan u cuntamin hogaamiyaashaasi qaar kamid ah dadka qaada dhigay arrimaha ayaa sheegay in dadka ku dhaqan qaaradda Latin America hadeerto ay si weyn ula socdaan qadiyada Falastiin kuna baraarugsan yihiin kadib markii ay arkeen tobanaan jeer oo madaxweynayaashoodu ay ka hadlayaan isla markaana qaarkood isaas ku barteen qadiyada Falastiin Chile madaxweynaheeda ayaa waxa uu yiri gabi ahaanba
wuxuu yidhi waxay u egtahay mar ka dambaysa xaaladdu in ay aad u sii foolxumaanayso halka madaxweynaha Colombia Gustavo Petro isaguna 15 daqiiqo khudbadiisa oo dhan uu ku soo qaatay dhibaatada Falastiin loo geystay iyo waliba xasuuqa degdegta Israa'iil waxaana lagu tilmaamay madaxweynaha waddankaasi Brazil isaguna uu diiradda saaray halka Colombia uu sidoo kale isaguna dhulka ku jiiday nidaamka saaniyadda waxaana lagu tilmaamay in dhamaantood hadaladooda ay ahaayeen kuwo kulul madaxweynaha Cuba ayaa dhinaca kale isaguna weerar afka ku qaaday Israa'iil halka sidoo kale la sheegay in madaxda uu ka mid yahay madaxweynaha waddanka Salvador iyo madaxweynaha Bolivia ay u ekaayeen kuwo iyaguna ugu yeeray in gabi ahaanba maxkamadaynta iyo qorgoynta dadka reer Falastiin lagu hayo ay ahayd inay ka hadlaan qaramada midoobay isla markaana xaliyaan kiisaska noocaas oo kale ah ay wax weyn ay ka qabtaan watribeelka wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan dabashan qiimaha leh caalamka waa u jeedan waxa ka soconaya laakiin baraaruga dadka bini'aadanka ay kala duwan heerarka ay dadka baraarugooda u kala mayareen waxa uu eegyahay qolo walba inay guurayso maskaxdeeda isla markaana diyaar garoobeysa inteeda dhinaca kale dabashana qiimaha leh wararka waaweyn ee dhinaca diblomaasiyadda waxaa ka mid ah ee aan idin hayay aadka u xiisaha badan idina soo socda hubka casriga ah iyo gantaalaha lagu tilmaamay inay yihiin advanced Russian missiles waa gantaalaha horumarka weyn haysta ama aad u horumarsan ee Russia leedahay ee la geeyay gacanta loo galiyo xoutiyiinta ayaa idin soo socotaan wararka damaad ku maqli doontaan xiisaha gaarka ay leedahay arintaas waxa weeye in mid ku taagta dunida saas oo kale looga jawaabo ee haatan aan fiiriyo dalka Tunisia oo muddo badan malaha warkiisa ay idinku damaysay maadaama warbaahinta warfadhi media ay tahay dunida oo dhan gaan meel kasta inaan ka soo warrano Tunisia waa wadankii wixii loo yaqaan kacdoonkii Carabta iyo ama guuga Carabta Rab'ul Arabi oo ka kacaamay sanadkii 2010 dabayaaqadiisa 2011 bilowgeedii haddeer wadankaasi waxaa qabsaday nin la yiraahdo Qays Saciid gacan bir ayuu ku qabsaday kuna yuri wuxuuna ka dhigay dadkii wax u xiray wax u qabtay wax u eriyay iyo xubaabi ururka naxda ayaa kamid ah dadkii aadka uga faa'iideystay dhaqaaqaasi haatan ururka naxda dadkoodii badankoodii waa tii la xirxiray loona isticmaalay sharci aad u adag oo madaxweyne Qays Saciid uu soo dejiyay ugu dambeyntii iyadoo doorasho ay dalkan ka dhici doonto horaanta bisha hadeerta soo socota ayaa la sheegay in la sii daayay qaar kamid ah xubnaha ururka naxda 17 hogaamiye ururka iyo dhaqaaqayaal warbaahineed waa naxda movement ka tirsanaa ayaa la sheegay in banaanka loo soo daayay iyadoo sidoo kale la sheegay in 106 la sii hay doono difaacaha Mukhtaar al-Jamaai oo la hadeeyay Arabi 21 ayaa waxa uu sheegay in la dhageystay dhammaan eedeymaha si kumeel gaaran loo sii daayay dadkaas isagoo ku tilmaamay inay tani tahay mid aad iyo aad u xun cadaalad darran ay ka jirto wadankaasi Qays Saciid markii uu talada la wareegay wuxuu sheegay inuu gacan bir kula qaban doono amanaal